colaadaha mar walba ay qabaylaadku isaga hor yimaadaan waagii hore iyo hadda way kala duwan yihiin waagii hore waxay ahaan jireen wax colaad ka dhalata ceelka iyo carshinta colaadii hore oo ceelka iyo carshinta ka bilaaban jirtay waxay xalkeedu ahayd in odayaasha beelaha culmaadiinka iyo dadka waxgaradka intay isu yimaadaan ay ka heshiyaan sidoo kale Soomaalida ayadana halka diinta maadaama diin islaam aan leenahay anaga oo aad u sharafno una ixtiraamno xadkana celinayana ay ayada tahay culmo diinkana waxaan isdhihi lahaa ayadana hadii ay culimada soo istaagto masaajidada ama dadkii u tagto ay la hadasho in ayagana ay wax maqal lahaayeen oo dagaalka xal laga gaari lahaa bulshada dhexdeeda dadka macnaha ku leh oo khiyaarta ah oo miisaanka ku leh oo degan oo aan meel kala deganayn in laga dhiso guddiga khilaafaadka haddaba shaqadaas way qabtaan laakiin macniyan maahan mid bulshadu maaragtay ay waxa faa'iidada is garanayso maahan mid ayagu laftigooda ay u arkaan inay guddi khilaafaad yihiin laakiin mar walba waxa uu yar waa qoysna xataa guddi khilaafaad waa leeyahay marka guddiyadaas khilaafaadka runtii waa baahi weyn loo qabo laakiin hadda waxa ku soo siyaaday colaado kale dhinaca federaaleynta colaadda ku soo siyaadeen waxay tahay xuduudo in dadku ay xuduudo ay maaragtay kala riixdaan oo deegaankii kala riixdaan waxa kale ku soo siyaaday colaad siyaasadeed oo dhinaca siyaasadda ka imanaysa oo qofkii siyaasad raba uu raba inuu maanta colaad uu meel ka kiciyo ama uu dad isku maaragtay hadii uu doontiisa waayo inuu dhibaato abuuro waxa soo siyaada marka colaadaha ay keenaan deegaanka iyo siyaasaddu colaadaasi way ka weyntahay tii ay xalin jireen odayaashu waxay u baahan tahay sharci lagu xaliyo iyo awood ciidan oo loo isticmaalo